aan dhibka ugu badan ka soo maray horta kaasi ilaa markii dambe dadka qaarkood aniga yiraahdeen igu imtixaan malabka oo kale waa la ogyahay malabku waa la qasaa badana marka waxaa la yiraahdaa dad suuqa joogo ganacsi ku ay keenayo la warniyo aniga waan saakan darsamee adiga noo kala saar ana marka ugu horeysay caaga marka dabool ka furo saddexlaha waa carfiya marka carfiyo carabtiisa day qanciso kadib aan dhadhankii aan maaragtay aan u bedela haddii carabi dhadhan oo suuqay wada qabto muuqaalka qofka aad soo xalkan cadmiya madowmiya gudmiya wuxuu qofku xarkaysa markaas aan weydiin marka sidaas ayaa alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa ta'ala igu soo galiyay dib badan waa laga kulmaa hadda howl bilaabaysay kugu cusubta dib badan kala kulmaa ama haddaad muddo bulsho u shaqeynaysid xataa dibad kala kulmee aflagaadad kala kulmee dagaalaad kala kulmee wax badan aad maarada kala kulmee laakiin mar walba waa loo dul qaatay waana muraadkiina waa la soo gaaro hadda alxamdulillah waxay noqotay in rugta akhraska daawada quraanka dhirta ay dalka iyo dibaddaba ay ka shaqayso oo daawadeeda ay gaarto waxaa kaloo rabaa inaan weydiiso aad u badan ay isweydiinayaan oo ah qofka marka ama dadka markay ay ku yimaadiin isla markaas miyaa daawo la siiyaa mase waqtiyaa loo qabtaa oo soo laabtaa macnaha aad amaasanta rugta akhraska daawada quraanka dhirta waxaa caado u ah qofka markuu yimaado in lambar ay bixiso boono lagu soo galaa jirto boono markay soo gasho la waraysto xanuunka markii la fahmo nooca daawada cudurka uu yahay markaan ogaado aan u sheego daawadaas noocaasa aad qaadanaysaa muddada intaas waaye lacagtaad bixinaysaa berritana usoo noqonaysaa si daawadii loogu diyaariyo marka qaab farmashiye camal inta u samayna ma dhigno laakiin waxaan samaynaa qofka markuu yimaado cudurkiisa ogaano kadib asaga shaqsinimadiisa ama shaqsinimadeeda gabadha aan ugu diyaarinaa ayadoo daawadeeda si gaara ayada u leh lacagteeda baxsane birna ayadoo diyaar ayuu imaanaya marka maalin ama laba maalin ayaa laga yaabaa inay dib u dhacdo oo qofkii soo noqday waqtigii la ballamaya laakiin waa lagu siiyaa inta badan waxay sheegtay inaad ku daweyso dawadiraadka inaad ku daweyso dawadiraadka geedo kala duwan oo maxaa la yidhaahdaa oo aad u badan miya mase hal geed oo dadka lagu daweeyaa jira abo dhirta haddaan daawo dhireedku dhahay waxaa waaye daawo dhireedku waa badan tahay waa tusaale waxaa ka mid a xarmalig oo kale dadka qaarkood tiiray dhahaan waxaa ka mid a maaragtay cuud hindigoo kale cuud baxrigoo kale ama qusdul hindigoo kale waxaa ka mid a maaragtay daawooyinkan ayaguna maaragtay kala duwan xataa geedaha wax lagu carfiyo oo shaah lagu carfsado kuwa maraqa iyo lagu carfiyo waxaasoo dhan waa wada daawo ama sajibil ha noqoto ama maaragtay qarfa ha noqoto ama hil ha noqoto ama joos ha noqoto ama filfil ha noqoto ama maaragtay xawaaji ha noqdo daawooyinka ay runtii ka mid yihiin ha noqoto maaragtay tuunta ha noqoto basasha ukunta oo kale waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba maaragtay wax lagu daaweeyo waxayna isugu jiraan kuwa dalka gudihiisa ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno laakiin daawasa jala oo dibadda laga keeno annaga ma isticmaalno waxaan isticmaalnaa keliya daawooyinka dibadda laga keeno ayagoonan la diyaarinin inta ayaan ku diyaarsanaa rugta akhraska daawada quraanka dhirta gudaheeda ayaa lagu diyaariyaa qalabkii lagu kuwii lagu karinaayo kuwii lagu garjaraayo kuwii lagu shiidaayo dhammaanba waa yaalay iyo kuwii maaragtay loo isticmaalayo dadkaba ama feera ha noqoto ama jibciska ha noqoto wixii qalabkii loogu talagalo dhan rugta akhra waa laga helaa waxaan rabaa markii aad diyaarinaysa daawada markaad diyaarinaysid oo kaleeto keliga aad diyaariyo mise waa lagaa caawiyaa runtii marba si waay marka laga diyaariyo oo habeenkii oo kale kaliya soo diyaarsado mararka qaarkood oo dhex joogo xaruntana caawiya jiro oo ila shaqeeyo oo waxa soo qabo waxa ikeen kaas ikeen aan dhaho saasna maaragtay aan ugu diyaariyaa dadka qaarkood oo tababarayna waa jiraan oo ugu tababaran maaragtay ila shaqeeyo on dhaho inta badan laakiin gacantayda ku soo biyaa sababtoo waxaan ku qanacsanahay inaan gacantayda ku soo biyo si qofka waxaan siinayaba ay u noqoto waxaan aniga aan hubo waxaa kaloo rabaa inaan ku weydiiyo yaa ku dhiirigeli barnaamijkan oo hore u socon kartaa qof ama xusi karta ma jira oo maanta aad noo sheegi karta haddii karta qof hebel yaa ugu soo gacan qabtay barnaamijkan oo igala qayb qaatay inaan barnaamij ilaa heerkan soo gaaro khayr laagsi axmed waa su-aal aad u qiimo badan aniga waxa dhiirigeliyey oo inaan shaqaystaba sabab iigu noqday waa hooyaday xalimo cali alla naxariisto anoo yar ay waxay bari jirtay markaan arag beelay saan dharka u dhaqdo saan maarag dabka u shido saan shaaha u karsado
sidaan u socdo waxaasoo dhan ay anoo yarba isoo barta dharta saan u dhaqdo dhowr qaab ayay runtii ugu bartay allaha ka abaalmariya hadda markaan arkay oo waxbarashadan oo dadka aragala loogu talagalay oo iskuullada markaan arkay sida loo tababaro oo loo siiyo waxbarashada waa sida hooyadii isoo bartay in badan oo ka mid a wax yaroo maaragtay uun aqoonta iska yareed marka laga reebo ayadoo soo tababaranin oo maaragtay cilmigaas dadka aragala wax lagu barabaranin ayaa haddana ay ibarta marka dhiirigelinta ugu horreysay waxaan kasoo helay hooyadii alla naxariiso kadibna horaan isii socday waxaan dhiirigelinta kale igu keena haddana waxaa waaye nin waa fiicanta waa shaqaysan kartaa shaqayso maalin walaa kamid a anoo suuqa bakaaraha gudihiisa xulbo ku shiidaya ayaa waxaa yimid wiil xulbo rabay xulbadii u shubay markaasoo wallaahi aad waxaa u ficnaa lahayd in shaqadan inta iska dhaaftay lagu shaqeeya ficnaa lahayd maxaa yidhi khayr laa ku siiyo aada u mahadsantaha fikirkaaga waa kugu ceebinayay laakiin maanta haddaan adiga inta kuu imaado waxisii ku dhaho berri ku dhaho berri dambe waxaa laga yaabaa inaad tiraa warkiyaa soo socda oo ii geysa marka inaan gacantayda ku shaqaysto ayaan ka jecelahay in maaragtay wax la ii siiyo oo la ii shaqeeyo saas ay tahay markaas carruura ii joogto ilmooyinka qaarkood waa waawen yihiin markaas xaaska ila joogo ii shaqayn karo laakiin haddana mar walba waxaan ka jecelahay inaan gacantayda wax ku qabsado inta la ibaro qabad hadhow iga kala go'i lahaa oo meel kusoo dhici lahaa inaan gacantayda ku qabsado ayaan runtii jecelaha marka waa la dhiirigeliye oo waxaa igu dhiiri qofka wax ibaraayaba waa igu dhiirigeliyey macalinkayga oo kale markaan u tegey oo iqanciyey oo wax samayskiisa iqanciyey oon codsaday waa iga aqbalay wuxuuna igu dhiirigeliyey asagoo macalin jaamacadeed oo ahaay dadkiisa wax loo baro yaqiinay saas haddana isiisi heshay inuu maarata waxbarashadiisa dhaqsiya aan maaragtay 2 sano markaan maraayay aniga anaa wax daaweynaayo maaragtay oo macalinka imtixaan inta iga qaado meeshii oo shaqa ilaahay 2 sano kalena macnaha wuxuu isdhahaya baraatig fiican aan sii qaatay anoo 4 sano anoo jaamacad kasoo baxay camal aan 4 sano u bartay kadibna taas kuma daynine ilaa goboladan la sii aaday xataa oo gobolada kala duwan oo koonfurta oo kale kuwa waqooyiga dhexe oo kale waxbarashadii waa usii aado macallimiin kala duwan ayaan kasoo bartay ilaa hadda xataa waa diyaar xan waa weli in waxbarashadii sii wada lima aqoonta in la kordhiyo ay u baahan tahay دكتور قادر محل علي السوري دكتور سجار حتى الحالات كل دوينتا معناها هيك سجار إلا هير إنت لا جالس أنا تجار من ندن أو محل هذا بيشو هذه قال ما نقطع من أختار لماذا ده سكالو ديو هير إنت لا جالس أنا تجار والله الحمد لله هذا سيد أنا كسب بتصاني شيء وسي بنانكا oo macnaha maaragtay aanan ahayn maaragtay aniga iskuul gaar ahayn ama aan jaamacad ahayn laakiin hadda waxaan jecelahay maadaama dugsiga sare aan ka baxay inaan jaamacadeydaba aan ka dhigto dhanka caafimaadka oo qorshe waxay igu jirto haddii alla idmo inaan dibadda u aado oon soo kordhiso maadaama xilligan hadda la joogo dhirta aad iyo aad adduunka oo dhanba oo kiimikada ka wareegayo oo dhirta u wareegayo waxaa qorshahaygu yahay inaan si aqoon buuxda ah aan maaragtay heerkayga jaamacada aan uga dhigo inaan maaragtay kusoo baxo dhaktar ahaan oo herbalka haddana insha allah aad aan ku rajeynayna inaad bulshada gaarto waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba inta badan dadku waxay ka aaminsan yihiin waxyaabo aan ku lahayn inaysan waxba qabsan karin dadkaas maxaa u sheegaysaa aad aa umahadsan tahay taas haddaad i weydiisay intaan su-aashaas aan toos ugu gelin saad ay sheegay 88 ilaa hadda dadka aragga la ayaan kusoo dhex jiray runtii inuu wax qabsan karin waxa loo aamino dadka aragga la ayaa u sabab ah ama dadka baahiyaha gaar ah u sabab labo ayaga naftikooda aan niyadooda aanan dhisnayn qaarkood inkastoo hadda in badan saa ugu qaylaynay oo u dhayna waxbaa qabsan karti waxaad baran kartiin ay hadda aad u barteen hadda laakiin waxaan leeyahay waa khalad in la yidhaahdo wax ma qabsan karaan wax qabsan karaan ujeedaan oo anigaaba hadda kamid ah oo dhakhtar wax daaweynayo dad badan oo jaamacad ka baxo maaragta maanta jaamacada macallimiin ka ahaa jira kuwa iskuulla macallimiin ka ahaa jira hawshu dadka aragga la waa u dhiirigelinayaan bulshada dhiirigelin ka helaan maane ay waxba qabsan karaan oo sida qof kale u qabsan karo ay u qabsan aragga u buu leeyahay aragga bedelkiisana qalaba uu helay oo maqal ahaan uu maqlaayo ama maaragtay taabash ahaan uu taabanayo haddana u sahlayso inuu wax barto iyo inuu shaqaysto labada marka waxaan leeyahay bulshada aaminsan dadka aragga la waxba qabsan karaan waxba qabsan karaan kuwa aragga la is aaminsan inay wax qabsan karinna guryaha kasoo baxaan leeyahay wax barta oo noqda dad maaragtay runtii bulshadooda